الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودية الشحناشي waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena maanta oo ah shanta shaqsi ee ugu taajirsan caalamka. waxaan soo qaadanaynaa shaqsiga shanaad ee ugu taajirsan caalamka. waxa lagu magacaabaa Carlos Slim Haley. lacagtu haysta waxa ay gaaraysaa 64 bilyan oo dollarka Mareykanka. Carlos Slim Haley waxa uu dhashay dalka Mexico waana milkiilaha shirkadda Telmex. shaqsiga afraad ee ugu taajirsan caalamka waxa lagu magacaabaa Bernard Arnault oo haysta lacag gaaraysa 76 bilyan. wuxuu u dhashay dalka France waana milkiilaha shirkadda LVMH. shaqsiga saddexaad ee ugu taajirsan caalamka waxa lagu magacaabaa Warren Buffett. lacagtu haysta waxa ay gaaraysaa 82.5 bilyan. wuxuu u dhashay dalka Mareykanka waana milkiilaha shirkadda Berkshire Hathaway. shaqsiga labaad ee ugu taajirsan caalamka waxa lagu magacaabaa Bill Gates. wuxuu haystaa lacag gaaraysa 96.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. wuxuu u dhashay dalka USA waana milkiilaha shirkadda Microsoft. shaqsiga koobaad ama shaqsiga maanta dunida ugu lacagta waxa lagu magacaabaa Jeff Bezos. wuxuu u dhashay dalka Mareykanka. lacagtu haystana waxa ay gaaraysaa 131 bilyan. Bezos wuxuu leeyahay shirkado badan, shirkadda Amazon, Blue Origin iyo wargeyska caalamiga ee kasoo baxa dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Washington Post. mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. barnaamijkan iyo barnaamij lamid intaan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.